Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka, saar like, share, comment. Maanta waxaanu baranaynaa 4 waxyaabood oo ka mid ah waxyaabaha WhatsApp-ka lagu horumariyo. Sidaas darteed kusoo dhawaada, calaamadda subscribe-ka taaba, gambaleelka waa inaad taabataa si ay kugu soo dhacaan fiidiyowyadii ugu dambeysay aan soo gelinay. asxaabi haddaan intaa kasoo gudubno xayeysiiska yar ee subscribe-ka ahaa, waxaanu maanta guda gelaynaa cashirkeennii ku saabsanaa tiknoolajiyada oo markasta marka dambeysa horumaraysa. Sidaas darteed maanta waxaan baranaynaa 4 waxyaabood. 4taas waxa weeyaan iminka waxaad aragtaan labada qof inay dadka ka duwan yihiin ama se aanay u yara ekeen, waayo dee waxa aan ku sameeyey in aan description-ka ama se option-ka koowaad ee WhatsApp-ka igu soo baxo aan ka dhigo xagga sare. dadka ay wax kala dhexeeyaan ama xiriir jacayl ama xiriir ganacsi ama xiriir waalidnimo ama qadarin aad qofkaasi qadarinaysid, waxaad samaynaysaa waxaad soo dhigaysaa bartaas sare ee WhatsApp-ka si aan dadka kale kaaga dhex milin. Sidaas darteed maanta cashirkeena koowaad waxa uu noqonayaa sidaad uga soo dhex saaraysid dadkaasi fara badan ee WhatsApp kugu jira, si aan qofkaas kaaga dhex ambanaad ganacsiga leediin ama se jacayl idinka dhexeeyo. Sidaas darteed waxaan sameynaynaa, waxaad marka ugu horeysa asxaabi tegaysaa waxaad tegaysaa calaamadaasi loo yaqaano chartiska loo yaqaano. asxaabi markaad tegtid waxaa kuu soo bixi doona marka koowaad waxaad tegaysaa qofka waxaa lagu qori jiray haddaad u baahan tahay barta, laakiin iminka maanta ku qori mayno. waxaanu taabaynaa markasta bartaas ayaad taabanaysaa qofka aad u baahan tahay. barta aad taabanaysidna asxaabi waa barta. cashirka koowaad aan maanta guda galnaa si hore asxaabi waxa weeyaan sida WhatsApp-kaaga aad ugu xiran lahayd fingerprint app-ka loo yaqaano. fingerprint app-ka loo yaqaano waxaad ugu xiranaysaa WhatsApp-kaaga. waxaad tegaysaa marka koowaad tallaabada qaas waxa weeye waxaad tegaysaa marka qofkaasi sidee ayaad uga dhex xulan kartaa dadka. qofka waxaad dadka uga dhex xulan kartaa waxa aad samaynaysaa qofkii aad doonaysay inaad markastaba aan dadka kaaga dhex milin. iminka inantaasoo kale ayaan waxaan qabanayaa marka koowaad waxaad samaynaysaa saas ayaad ku samaynaysaa, waxaad cadaadinaysaa qofkii hoos ayaad fartaada saa ugu odhanaysaa. sidaad markaad fartaada saa ku tahayd waxaad samaynaysaa waxaad taabanaysaa calaamadaas yar ee biinka loo yaqaano. markaad taabato asxaabay waxa ay kusoo darmaysaa inantaasi dadkii xagga ugu soo iminka aniga waxaa igu jira 3 qof. 3daas 2 qof sida waan qadariyaa waa saaxiibaday, midna waa tan iminka tusaalaha ku bixinay. sidaas darteed waxaad samaynaysaa iminka haddaan kugu soo celiyo qofka ayaad qabanaysaa. haddii aad doonaysid inaad ka saartid waxaad sii taabanaysaa bartii waxa uu qofkaasi ka baxayaa. haddii aad doonaysid asxaabi inaad ka saartid qofkaasi meesha, iminka inan baan meeshii geliyay, waxaan doonayaa inaan booskii sare ee aan geliyay aan ka saaro. waxaad sii qabanaysaa bartii, waxaadna sii taabanaysaa calaamadii marka aad taabatid naftii aad marka hore saartay meesha waa ay ka baxaysaa, waxaana kugu haraya intii kale. sidaas darteed cashirkii koowaad kaas ayuu noqday. cashirka labaad waxa uu noqonayaa sidee ayaad WhatsApp-kaaga ugu xiran kartaa waxa loo yaqaano fingerprint ama se fartaada. waxaad WhatsApp-ka ugu xiran kartaa waxaad samaynaysaa waxaad taabanaysaa 3daasi dhibcood ee yaryar. marka aad taabatid waxaad kasii dooranaysaa calaamadaas setting waxa weeye wax kasta oo ka mid ah WhatsApp-kaaga waad ka maamuli kartaa. sidaas darteed markaad calaamadaas setting tagtid waxaad kasii dooran doontaa tan ugu sareysa oo account. markaad ka doonatid asxaabi waxaad sii samaynaysaa ama se aad sii raacaysaa waxaad kasii dooranaysaa
oo ah security ama sad qafil ugu xiran lahay. Marka aad kasii dooratid waxa aad tegaysaa calaamadaasi ugu hooseyso oo ay ku qoran tahay finger lock asxaabi. marka aad tegtid waxa aad sameynaysaa waad ku dhufanaysaa waad gashanaysaa. aniga imika mid ayaa igu jira sidaas darteed finger one kuwaas ayaad mid ka dooranaysaa. cashirkeenii labaadna waxa uu noqday kaasi isaga ah. cashirkeena saddexaad aan ugu soo noqono. cashirkeena saddexaad waxa uu noqonayaa sidee ayaad imika ugu diri kartaa qof sawirkaasi oo noqonaya mid yar oo aan kaa qabsanayn space weyn oo shaashadaada WhatsApp-ka. iminka haddii aan isdhaho sawir u dir qof, waxa uu igu soo baxayaa sawirkaas aan isleeyahay qof u dir. iminka markaan qofka saa ugu dhufto calaamadda yar markaan taabto waxa aan taaban jiray gallery-ga waxaana soo gelin jiray. iminka haddaan taabto oo kale waxaan soo gelin jiray sawiradaas markaan mid ka mid ah iminka soo geliyo waxa uu soo baxayaa sidaas weyn. sidaas darteed anigu tan ma isticmaali doono, waxaan isticmaali doonaa habkaas. waxa weeye iminka qofkan ayaa sawir u dir, sidee ayaad ugu diraysaa. waxaad taabanaysaa calaamadaas waxaadna ka dooranaysaa document asxaabi. marka aad ka dooratid waxaad sii dooranaysaa bartaas ugu sareysa oo ah barta ay sawiradaada kugu jiraan. marka aad tagtid waxaad soo dooran doontaa asxaabi. markasta waxa uu isku xirayaa bahalkaygu fingerprint waayo waa uu iga xiran yahay anigana iminka idin sheegaya. waxaad soo dooran doontaa asxaabay sawirkii aad qofkaas u diri lahayd. iminka qofkan ayaan waxaan u dirayaa qofkaas waan taabanayaa send ayaan oranayaa. iminka asxaabi waad aragteen sawir weyn meesha kama soo baxayo, waxaa kasoo baxaya sawirkii oo PNG ah amase yar oo lamid ah sida message-kan anigu diro oo kale. kaasi wuxuu noqonayaa cashirkeena saddexaad ee aan maanta qaadanay. cashirkeena afraad asxaabi waxa uu noqonayaa sidee ayaad profile-kaaga uga dhigi kartaa mid aan la arkayn. profile-kaagan sidee ayaad uga dhigtaa mid aan cidnaba arkayn oo aan laba ogaan karin wax allaale waxa ku saaran. sidaas darteed asxaabi waxaan afsharkan afraad ku qaadan doontaa sidee profile-kaaga aad uga dhigi lahayd mid aan la arkayn. waxa aad soo gelaysaa calaamadaas sitinta ayaa taabanaysaa mar walba asxaabi. calaamadaas sitinta marka aad taabatid waxaad kasii dooran doontaa halkaas loo yaqaano chart ayaad kasii dooran doontaa amaba se waxaad kasii dooran doontaa notification asxaabi. marka aad ka dooratid waxaad oran doontaa waxaad kasii dooran doontaa bartan ayaa waxaad kasii dooran doontaa notification. marka aad taabatid waxaad kasii dooranaysaa notification tools. marka aad ka dooratid asxaabi waxa aad xidhaysaa bartaasi kusoo baxday ee tigtu saaran tahay. aniga iminka profile wuu ii habaysan yahay oo lama arkay profile-kayga. sidaas darteed waxa aad halkaas tigtu ay saaran tahay ayaad markasta waad ka qaadaysaa. iminka way iga qaadan tahay aniga marka lama arki maayo wax message amase profile WhatsApp-kaaga. waan salaamayaa asxaabi markasta iyo meel kasta waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada channel-kayga. saabo calaamada subscribe-ka markasta si ay kugu soo baxaan fiidiyowyadii ugu dambeeyay aan soo geliyay, sidaas oo ah si aad ula socon kartid afartii waxyaabood waanu baranay asxaabi. waan salaamayaa meel kasta joogtaan. YouTube channel-kayga saara subscribe, furta calaamada gambaleelka ama jilidka saad u taqaanid si kugu soo dhaco waxyaabihii ugu dambeeyay. waan salaamayaa. cashirkanka ku xiga wuxuu noqon doonaa 5 waxyaabood oo WhatsApp-kaaga aad ku horumarin karto oo kale. waan salaamayaa. assalaamu calaykum.